xaflad ballaadhan oo lagu furiyay hotel cusub oo laga furay magaalada Taleex ayaa lagu qabtay hoolka shirarka hotelkan ayaa wuxuu isku jiraa qayb hurdo iyo qayb cunto sidoo kale xafladan ayaa lagu taageerayay nabadii dhawaan ka dhacday deegaanka dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladan ayaa soo dhaweeyay hotelkan sidoo kale qurbo joogta deegaanka ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka ka socda deegaanka نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين إلهي بين هذا علينا مركه هراء سوء كان يقوبتن قيمها بدن لي حفلدا أقاسما رنتي وحال رنكر هذا كله وفعلها يا استعمها هرمركه أي كم تهاي مقالة ده كله muddo hadeerto waxay iska ahayd magaalo dibdhac iyo dib u socod iyo hadii alla baydmaayo dhinacyada haday noqoto xaqii waxbarashada iyo haday noqoto xagga caafimaadka iyo haday noqoto xagga dhaqaalaha iyo nabadgeliyada intuba ay qasnaayeen waxaanu arkaynaa marka alxamdulillaah rabbil caalamiin in ay kobcayso waxaan rajaynaynaa in ay inoo sii kordhaan horumarada waxaynu mahad celinaynaa Caasha Ciise talaabadan wanaagsan oo ay ku dhiirigelinayso dadka reer Taleex meel kasto ay joogaanba waayo haddaan dadka qayb ka mid ah aanay tusin isbedelka iyagu aanay tusin inta kale waxa laga yaabaa inaanay kuba baraarugin waxaynu u baahanahay marka cid kasta oo reer Taleex ah oo ama dalka joogta ama dabadda jirta sidii ay u maalgashan lahaayeen deegaankooda oo horumarin lahaayeen oo haday noqoto xagga wax soo saarka gudaha iyo haday noqoto wax xadaarado wanaagsan oo lagu soo kordhiyay intaba oo wax loo baahan yahay aad iyo aad bayna farxad iyo rayn inoogu tahay Taleex oo udheelkii labaad oo inooga furmay magaaladu magaala de hadii alla baydmaayo horumaraysa oo kobcaysa ayay ahayd laakiin shaydaankiina soo kala dhex galay baa ragaad badan keenay laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin wax kasto dadka soo mara waa laga kabtaa ka kabashadii baa bilaabatay waxaanu u baaqaynaa marka cid kasto wax ku ool ah oo reer Taleex ah in ay ku dayato ku dayashada wanaagsan marka ilaahay baa mahad iskale subhanahu wa ta'ala waa wax lagu farxo waxaan rajaynaynaa marka in lagu daydo oo hadii alla baydmaayo dadkuna ay sidaas oo kale ay sameeyaan arrimaha mudan marka in la xusuusto waxa weeye hadiyo goor wax ku soo maro waxba laga bartaa innaga waxayna soo maray sanado iska yar adag waxaanu ka baranay tafaraaruqa iyo xumaanta iyo colaadu sharka ay leedahay iyo dhibka ay leedahay waxa la rabaa marka de khibrad inaynu ka dhaxalo dad wixooda ilaashada maanta halka de hotel annaga markii halkan la degayay de orgooyinka yaan dejinayna leedna kama jirin waa kaas maanta hotel weeye alxamdulillaah rabbil caalamiin nabada ayaa u sabab ah marka waxa weeye aynu ku sii dhiirano dadku waxa laga yaabaa inay meel kale horumarkooda iyo qofkii xoogaa haysta uu siraahdo magaalo heblo weyne ama halkan population badan ama halkan sidan ah waxa la rabaa halka kan waxay u baahan tahay in la horumariyo oo ma garanaysaa waxa weeye baahiyihii oo dhan baa ka jira hal laga faa'iideysto waxa weeye wax badan oo khayr ayaa laga kulmi doona insha Allah ta'ala sidaas ayaan oranayaa jazaakumullahu khayran aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaynu ilaahay ka baryaynaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala ina barakeeyo hodelkan iyo beedkan cusub oo loo furay bulshada reer Taleexna uu noqdo mid barakaysan oo ujeedooyinkii laga lahaa iyo kuwa ka wanaagsan ba laga gaaro ayaynu ilaahay subhanahu wa ta'ala u weydiinaynaa waxaynu leenahay ilaahay dambigeena ha dhaafo nabadgelyada ilaahay inoo adkeeyo shar dhamaantii Allah inaga hayo waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala khaatumadeena ha hagaajiyo
wax kastoo khayr oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu og yahay allah ina waafajiyo wixii shar allah inaga hayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ina islaaxiyo nabadgelyada ilaahay inuu adkeeyo waxaan si gaar ah ugu sii ducaynaynaa caasho ciise oo albaab cusub inoo furtay khaasatan dadkii qurba joogta ahaa de hotel hore waa inoo jiray laakiin isku dayga fiican oo samaysay waa ugu ducaynaynaa allah barakeeyo barakallahu fiikum assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa magaalada u soo kordhay waa himilo waa horumar inoo wada qabsoomay oo noqonaya hudheelkii labaad ee magaalada laga furo saasaan iyo astaana u noqonaya haddii la haydmo nabadda iyo horumarka magaalada ka jirta waxaa laga yaabaa bilo ka hor iyo waqtiyo yar ka hor inaysan inoo suurto gasheen ama aysan inoo suurtogelin inaan hudheel furano taas waa naruurada iyo horumarka aan insha allah inoo furmay magaalada u soo kordhay waa himilo waa horumar inoo wada qabsoomay waa nooc ka mid ah noloshii oo bilaabantay falilahi alxamdu intaa waxaa raacda hudheelka qudhiisa ayaa wuxuu u baahan yahay inaan talooyin siino si curdinimadiisa ay uga faa'iidaystaan ka hor intaan hadhow kadib waayo aragnimo gaadhin marka insha allahu kolley dee talooyinka ugu muhiimsan horta marka koowaad hudheelkan faa'iidada uu inoo leeyahay waxaa weeye awal magaalada hal hudheel baa ka furaa sidaa darteed tartan baa bilaabmaya waa faa'iidada koowaad ee uu inoo leeyahay marka labaad waa shaqo abuur dad baa shaqo iyo camal ka helaya runtii awal aan camal hayn marka saddexaad faa'iidada kale aan ka helayna waxa weeyaan cid xil kugu haysay oo meelaad seexisida awdu yar lahayd ayaad waxaad u helaysaa meelaad seexisay tusaale ahaan markaan magaalada imaado iskaba joogo mararka qaarkood waxaa dhacda haddii dad aan asxaab ahayn aan ogahay inay reer talax ay la soo hadlaan dhahan talax baan joogtaa waa imaanaynaa su-aasha koowaad aan weydiiyo runtii waxa weeyaan yaa kula socday waxay u socdeen iyo waxay doonayeen intaan weydiiyo sababta aan weydiin waxa weeyaan haddii dadkaasi ay la socdaan dad reer taleexa hurdada xilkaama saara waxaan fahmaan un keliya inay asxaabnimo u leeyihiin magaalada imaanaynaa aan kala war hayno laakiin haddaan cidi la socon waxaan isku dayaa inaan baadi doono hurdadii maanta goob hurda leh oo goobo hurda ay jiraan waa falilahi alxamdu waa baahi laga soo gudbay bana baahi jirtay weli waxaan leenahay hudheeladu inay sii bataan baa fiicano markastoo hudheeladu sii bataan meheradahu noocay la furaa markay noocaas sii bataan way helaan mujtamaca qudhinaysaa sii barta hadda halka dadku ka doondoonaan meelo ay seexseexdaan iyo cud inay culays saaraan iyo haddii hudheel la helo way helayaan waayo magaaladu waa wax ka dhinnaa waa bointiyo ka dhinnaa haddii hoolal shireed inoo dheer yihiinna waaba kasii fiican yihiin kan cusub ee degmada gobolka taleex la furay aad iyo aad baanu ugu hambalyeynayna una soo dhaweynaynaa waxaanu kaloo leenahay in lagu daydo bableeshinka reer taleex horumarka iyo mustaqbalka hadday jaariyadaha tahay iyo hadday ganacsatada tahayba in la dardargeliyo horumarka magaalada taleex waanu soo dhaweynaynaa waanu hambalyeynaynaa waxaanu leenahay ha lagu daydo horumarka magaaladana ha la horumariyo dhaweyn iyo xarifur bay la tahay maasha allah hudheel maasha allah laga furay maanta magaalada taleex aad baan u soo dhaweynaynaa waa horumar soo kordhay waa wax loo baahnaa kolley wixii dardaaran iyo talageliyo iyo waana iyo odayaashana way ka hadleen waa iska soo kooban yahay hadalka waan malaynayaa dee maasha allah xafladda aad baan u soo dhaweynaynaa maasha allah baan leenahay بارك الله وبارك فيه إلهي هكو بركيو عاشا هدل كان هكو بركيو runtii waa arrin weyn wey waana na farax gelinaysaa deegaanka dhan bayna farax gelinaysaa waana arrin ku dayasho mudan sababtoo ah horumarka waxa lagu yaqaanaa iyo taqadumka xaflado hudheelo lagu furayo hudheelo hurdo kuwa cunto waa horumarkay ka mid tahay magaalooyinka markay horumarayaan ama caasimaduhu markay horumarayaan waa calaamadaha lagu garto dee meeshii dumaysaana waa meel laga qaxo markaa tanu insha allahu gobollo badan iyo dhul badan oo dhismay ayaad ku arkaysaa xafladahaas maaragtay la dhigayo in dee qofku deegaankiisa uu maal gashado waa arrinta ugu muhiimsan weeye inuu deegaankiisa maal gashado
deegaankan deegaan dheeldheela maaha deegaan ciyaara maaha haddii dad kalihi ay maal gashadaan haddee deegaanku wuu horumaraya haddii la odhan lahaa dee colaado iyo waxbaa jirjiray haddii la odhan lahaa haddee maanta ma jiraan marka qof walba waa inuu deegaankiisii maal gashadaa waana inuu dhisaa deegaankiisa runtii muddada haddeer islaaxa iyo nabadgelyadu ay dhacday waxa weeyaan horumar badan baa magaalada ka muuqda oo dhan walba ah dhanka caafimaadka ka waxbarashada ka meheradaha ka dhismaha guryaha ka beeraha wax horumar baa ka muuqda waxa la kulli shay yarjic ila aslihi shay walba asalkiisa u noqda waa dhaxdaas aan waxaan moodi jiray xoolaha in la nici doono oo de geel cid raaci doontay cid dhaqan doonta talay waayo hadeertana ganacsatadii ugu waaweyneed iyo dadkii hantiilayaasha ahaa nin walba xarays buu bajeexday marka geelii laga cararayaaba loo noqday hantidii maanta isaga la gelinaya war deegaankiisa maanta nin walba maal gashanaya xoolihiisii buu nin walba maanta u soo noqday marka waxa weeye deegaanka in loo soo noqdo arinta caashana waa ku mahadinaynaa ilaahayna ku barakeeyo mid laga faa'iidana ilaahay hudheelka ka dhigo insha Allah ta'ala saas baan leenahay dadka kalena ku dayad summa salatu wa salamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam marka koowaad ilaahay baynu mahadnaqaynaa subhanahu wa ta'ala waxaynu ugu mahadnaqaynaa nimcooyinkiisa faraha badan oo kala duwan oo ilaahay inagu galadaystay marka laga yimaado nimcooyinka ilaahayna si waxa ugu muhiimsan farabadnaantooda kala duwan yihiin waxa ugu muhiimsan iimaanka iyo islaamnimada ilaahay inagu dhaliyay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaynu maanta furaynaa aynu xasuusinaynaa maanta isku xasuusinaynaa goobta tan kelmad muhiim ah golayaal badan oo horena aynu ka niri in badan aynu ku celcelinay kelmadaasi dadka talax degana waa xasuusinaa dadka goobta joogana waa u sheegaynaa inta maqanna waa u diraynaa waxaynu ognahay talax 7 sano ama 6 sano u dambeysay in laga sii guurayo dadku ka guurayeen maanta waxaynu nabad haysanay muddo bil iyo xoogaa yara waad arkasaan maanta talax dubay isbedelka ku dhacay gaadhigii yimaadaba waxa saaran reero geediya oo ku soo socda talax waxa yimi isbedelkii nolosha waad arkasaan maanta inuu hoteelo waaweyn furanayno waxa keenay kuma fakarayn ama hamigeena kuma jirin inaynu furano bilo ka hor iyo sanad ka hor toona hoteeladan laakiin waxa keenay maanta waa nabadda ilaahayna siiyay subhanahu wa ta'ala qodobkan markay u dardaarmaya dadka waxa weeye war nimcada ilaahayna siiyaan ogaano ku dhigaan oo ilaahay aan ugu mahadnaqno oo aan ku adeegno si horumarkaas uu imanaya mid ka sii badan baa imanaya laakiin nimcada aan xajisan nabiga kaleey salaatu wasalaam diinteena wuxuu ku sheegay diin nabadgeliyo oo wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam mar kale nolosha oo dhanba wuxuu yiri waa nabadgeliyada man asbaha minkum aaminan fi silmi qobka waa baristay isaga oo caafimaad waxa weeye gurigiisa nabad ku haysta macaafan fi jazadi jirkiisuna uu caafimaad qabo oo maalinta aan jiro iyo xanuun la soo toosin indahu qutul yawmi maalinta ay subaxa wuxuu cuni lahaan haysta kana ma xisati dunya bihadafira bi nabi kaleey salaatu wasalaam qofkaasi waa qof adduunyo oo dhan lagu jimciyay maxaa ka amnigi وأستاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالكست أو دلته وحرنش اللهم أهلنا بالأمن والإيمان إيمانك وحكور سنتي أمنك لا واحد نقول على إيمان يا أمن قدر دارنا مركز هذا تلاحظ ما أنت هر مركز وعذرك تاني نقارن الدربي يسبدلك هتلا ذا فرمية شعب كيو مجال ذا قصة نقنية أرضي ذي سياسة ورهلا إلى شذ وقضب كهالوجود دجو أو هذا استنبات كهالوقف صدق أو كما غني كتشوجا بدل ما أنت إنسان ويل على الله أنا قدر دارنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين علماء خيارتا وضياشا هبلها هويوينكا إيا دلنيرada dhammaantiin salaanta islaamkan kor ku xusaan idinku salaamay barlabaad salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigoo caasha ciise darmaana hotelkan hadda la furay ee la yiraahdo ma sha Allah hotel Taleex mulkiilaha kulli hadda dambaaba ayaan intaasan hadda ku furayaa
marka insha Allah kulli hoteelku wax kasta hoteelkana waxa ka mas'uula oo loo dhiibay gabadha la yiraahdo Faaduma Xasan Maxamed hoteelkana everything wixii uu baahnaa waanu dhignay everything wax kasta oo baahidiisa ahayd waanu dhameystiray wax ka maqanina ma jiraan haday Google tahay haday biyo tahay haday everything baahidiisa oo dhan waxay doontaba ha ahaatee wixii hotel leeyahay buu hayaa shalay baan furay maanta koow xafladiisii hadana marka hoteelku wuxuu u furan yahay shirarka in lagu qabsado degmada Taleex gobolka Taleex shirarka ay ku qabsadaan ducooyinka iyo shirarka iyo waxyaabaha iyo hotel ahaan in la ogaado magaaladii amnigeedu inuu sugan yahay oo magaaladii toosan tahay oo fiican tahay insha Allah roobka iyo wixii inaga maqan Ilaahay cinda Allah xaqiisa ku xidhana way inoo iimaanayaan nabadan Allah inoo adkeeyo sidaasaan kulli intaasaan waxaan leeyahay hadalkaygu intaas ku soo afjaran yahay dhamaantiina waan idin salaamayaa